halkan waa degmada Xamar Jajab waxa ay kamid tahay degmooyinka gobolka Banaadir caadiyan marka dhax qaado qaar kamid ah xaafadaha degmada ayaa waxa ku muuqanaya in hareeraha wadooyinka ay buux dhaafiyeen qashin taa oo saameyn ku yeelatay bulshada ku dhaqan xaafadaha degmadan qaar kamid ah bulshada ku dhaqan degmadan Xamar Jajab oo la hadlay muqbaahiyaha TV-ga SN ayaa waxa ay ugu baaqeen maamulka gobolka Banaadir in wax laga qabto howlaha nadaafad darro ee ka taagan degmada shacabkan ayaa waxa ay sheegeen in aysan jirin hay'adda ku howlan in ay qashinka ka aruriso xaafadaha degmada iyadoona taasi ay ku sheegeen in cudurro ay ka dhalan karaan waxaan macnaha dib ku qabnaa hadaan degmada Xamar Jajab aan nahay qashinka nadaafad darradan dhibaato badan aad iyo aad u qabnaa waxaan u baahanahay maamulka gobolka in qashinkan wax naga dhaho xaafadii dhan wada qashin way ilaa meerashay saaran yihiin anaga haaman qashina la haajirna biyaas libro haaman qashinkan ka cusubna gudoomiyaha gobolka in loo keeno qashinka soo raacda loodan dad badan oo ku dagaalaya jirto gudoomiyaha gobolka Iriso waxaan ka cusubnaa in macna haaman qashina la haajirna degmada Xamar Jajab haaman keen loo keeno waxaan ka codsanaynaa gudoomiyaha gobolka inuu qashinkan haaman oo noogu keeno dhibaato weyn loogu jiraa cudur iyo balaayo laga bixilayaa iyo daacuun qashinkan waa lagu soo shubaa meesha nimanka qashinka meesha iskaga soo shubaa meesha waa meel ka bada Burundi lagu cayaaro dhalinyarada Burundi ku dheesho qashinka magaalada laga soo qaado halkaan lagu soo shubaa meelaha qaar kood xataa waa la iskaga shubaa nadaafadda waxa waa iimaanka barkiis dadku kulay waxa waa qashinka soo qaada halkaan ku shubaa meeshan waa garoon dhalinyaradu Burundi ku dheesho waxa ku shubtan shirkad niman baabuur ku wata baabuuraya meesha ku daadiya oo keena ku arkayaan xilliga ku shubayaan waa u jeedaan dadku maamulka gobolka Banaadir laga rabaa inay qabtaan laakiin dadku waxa kama qaban karaan maamulka gobolka Banaadir la rabaa in wax ka qabtaan oo dadka qashinka ku shubay meelaha ay wax ka qabtaan ayaa laga rabaa nadaafadu waa iimaanka barkii sida ay nafarayso diinteena islaamka balse sida aad ka dheehanaysaan degmadan Xamar Jajab ayaa waxa ka muuqda in aan xil iska saarin howlaha nadaafada inkastoo loo baahan yahay in qof waliba uu ka qayb qaato sidii nadaafada wax looga qaban lahaa Mustafa Xasan Cabdi wararka TV-ga SN magaalada Muqdisho